maanta waxaan ku hadlaynaa ajendadeena qodobkan caafimaadka marka la yiraahdo aad buu balaaray waana waxaanu ku soconaa qofku hadduu caafimaad waayo ama uu caafimaad weedo waa halis badan ba jirta halkii laga soo qaaday inuu soo amba qaadnay iyo maanta halkan taaganayna wax ilaahay lagu mahadnaqo maanta meel wanaagsan u maray balse maanta waxaan ku hadlaynaa waa naashnaashkiisa iyo wanaajintiisa iyo sidii loo tayin lahaa waxaanu haysanay inuu wax ku kordhisanahay meel wanaagsan meenu marana markaad eegtaalka inuu haan jiray waxa se jirtay inaanu aynu ku dhiirigelino sidii caafimaadka inoo qaabilsan inaynu u sheegno inaynu u baahanahay tayeen waxaad moodaa in caasimadda isugu soo ururtay oo gobolladii laga soo yaaco gobolladii ay aad u liitaan tayada isbitaaladii ku yaal waxaan odhan lahaa wasaaradda caafimaadka iyo ciddii ku shaqo laba dadka halkooda ha lagu daayo nin walba tayada halkiisa lagu gaarsiiyo ama dhakhaatiir ha noqoto ama wixii kale loo qabanay shaybaar ha noqoto ama qalabka ha noqotee waxaynu u baahanahay in la tayeeyo gobollada caafimaadkooda isbitaalada ku yaala in la tayeeyo u baahanahay waxa kale oo moodaa inay jirto mashruucyo la soo qaatayo waxa marka badan dumarkii dhalayo kale inaan laba sugin intii fooshu qabanaysay waayo hooyooyinkii waxaan ogeyn badarimiibanu haan jiray awr baa la saari jiray iminka haddaad keento sil saacad gudaheed baa lagu wala qalaya war waxaanoo qallayni waa maxay talo anumaan garan arrintaa waxaanu u baahanahay bal dadkan in loola alla baryo qalliinkan degdegaan laga daayo qofku laga fooliyo dumarada si aan dhib kale u imin qofku waa dhagax taagan ma noqon saxba qabsan mayse xagga dawada xildhibaankayga horreeyay aad ugu dheeraad aad ugu mahadsan dawo maanta ma taala dalka tayale waxa ka sii daran niman la yiri waa cilaajiyo dawooyin lagu soo goray bahalo kaabsool qalkii kaabsoolka sita waxa ka sameeyay dadku xataa qiyaastoodii aan la garanayn dib kale dhakhtar kulli aan wada bixiyay jiro iyaguna wax walba daweynaya oo boqol cudur sheegtay macaan dhiikar madax xanuun dhabar xanuun maxay xanuun wax walba kulaana daweynaya war bal wasaaradda caafimaadku waxaan dalka joogaha hoos oo eegto waxa leeyahay nin takhasus qof walba wax gaar ah ku takhasus qof madaxa ku takhasus dhigaha sanka meeluna ha ku joogsado laakiin ninkan madax ilaa mijo xubin kulaana u daweynaya dab aqliga bilaadinka marka aqliga saliim kaan ku fikiro qof intaas oo dhan takhasus loo siiyay ma jiro waa calal qiyaas wax ku socda calal qiyaasina caafimaad darra ka dhalanaysa waxaanu u baahanahay marka in dadkan hoos loo eego wasaaradda caafimaadka iyo guddiga mihnadayaasha caafimaadka shahaadooyinka siinisay ay tiraahdo war waxan xageed ka keentay meelun ku eeko laakiin markay noqoto madaxay furan waa kala ka dhalanaya inta hadan ka gudbo qolada dawooyinka inta waxa la war dawo tayaala keena waxa doonto ma noqon xabada kiniina waxa doonto siiyo war wax tayaalo qofka xanuunka ka kaxeeya keena waxaan mar maxaa la leeyahay maxay u bixiyeen magac u bixiyeen xanuun baabiye war xanuun kaxeeya keena xanuun baabiya keeninay mid ka baabiyay halkiisii dhigay hal keena dalka inta markan ka gudbo waxa noo qoran سمنت عسبتالو قارع إذا ماذا دلك إذا ماذا دلك وين عسبتالو قارع ويتشيلان وشقيان وحيسوا بهاي لفتوا ولا تهيئوا ولا قارسية هرك عالم إذا ماذا ليهين يكون قار كلوليها وحكلون صوت شديد لان كترين لها وروينا أركان ناس البراء دعوا بسهرة دعوا إذا ماذا عافمات إسكما بحين كران وحيلات على دعسين وحير وبتقول قادرين waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo meelo u gaar ah ubadkooda iyo dumarkooda meel lagu daryeelo ciidamadu leeyihiin oo u bilaashay in loo sameeyo ciidamada soo jeedin lahaa oo ciidamada kala duwan ee dalka caafimaadka carruurtooda iyo dumarkooda loogu gaar yeelo si ay u gaaraan heerarkeen u baahanahay